السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بعدين سلام يا دمانتين نعرف ما قبتان بعدين رجينيا وأنا يو سير شاكير أو مقرن إساء أهنين كصومالي إنا يمارك تاي هيرب لايف كوسو بيرتو نيوتريشن هلان جيدكو دلسان سنفقيان لايف ستيل نول أصمستان نينك كدن بي ويسيرت كدن بي سيوان ما شاء الله أدو مسدين أدو السلام يا جايز مقعي وسر شاكر runtii waxay tahay aniga waqtiga maanta experience aad weyn Somali Heroes oo joogno Stockholm iyo seminaarkan kick off sanadkan maxay bilowgiisa ah leadership training runtii afar sano isticmaalaya maanta lifestyle iyo ku jira hadda isticmaalaya anahay qof marka ruuxana daalan low energy sportiga exercise ka sameeyo waxyaabo badan oo kala isticmaalaya laakiin maanta markaan hadda bilaabay I live healthy active lifestyle every day taasina waxa weeyaan the balance nutrition sidoo kalena sportiga aan dib ugu laabtay 80% nutrition 20% exercise deetana 100% result marka taasina waxa weeyaan aniga qof kasta dhalinyaro ah oo maanta doonaya isaguna inuu soo muscle gain or the lifestyle iyo sidoo kale maanta more life oo ku sii noolaado sidoo dadka kalena waa abuuri kara fursad weyn inay ku noolaadaan yacni healthy lifestyle asxaabtaada familykaaga every person marka waxa weeyaan big inspiration iyo in saameyn weyn ku yeelato dadka kugu hareeraysan adna dhisi karto baraka ama full time income marka opportunity weyn runtii aan doonayno every person maanta inuu ku noolaado the best life oo isagu awoodiisa u leeyahay inuu samaysto hadduu jecel yahay travel hadduu jecel yahay freedom hadduu jecel yahay high extra income hadduu jecel yahay sport plus business nutrition chibis everything marka this waxa weeyaan aniga waa chance aad weyn imikana waxaan nahay over 7000 people around the world inka badan 40 wadan marka still one koreyna maxay seminaaraduna way soo badan doonaan wadamo kasta aan joogno meel kasta joogtaanba waan idin iman doonaa waan arki doontaan insha Allah hal su'aal وش كمبني قماش اللي قاله إنك أنا على النهو صومالي no بيلو قد تصير يقول أنت قاعد بيجي شراكان كلك الله okay لكن ده هذا لك واحد شفتها over 40 years أفرت الصوت أنا قلنا حبيت أنا 4 years كله فكأولي فرق ما قبل حوالي ما حضرتك ساينة تاي huge opportunity لحية سجاش مودان millions of people ما entrepreneurship يعني ما تقدر كونوا the lifestyle business everything مرة وحويان chance weyn hadda maanta adna waxa uu baahanay waqti dhamaanteen exactly xaqiiqatan marka laga hadlayo qof walba uu doonaya best shape lifestyle healthy and maxay income maxay freedom travel and xurriyad waxaas oo dhan helo waan u baahanahay iyo daynan familiyadeena iyo dadkeena maanta inagu haraysan jiraan nolol fiican siino waxyaalahaas oo dhan waqtina la qaadana marka anigu laba carruuraan la xaaska iyo aniga runtii mar walba waxaan wada qaadanaa waqti aad u qurux badan travel haday tahay wada joog haday tahay dhinac kasta marka shaqo iga mashquulinaysa maanta ma jirto berigii hore laakiin way igu adkaan jirtay marka aan isiraahdo u tag laba waddan kala deganeen sanadkii hal mar bay u qaadan jirtay shaqadina fasax qaato waqti dheer waa hal mar sanadkii haddii doonto dhaqaale mar qaba ku saamaxay iska joogsan sameeyay imika ma iman karo sanadka dambe marka waxyaalahaas oo dhan iska dhacaan laakiin maanta bil walba waxaan wada joognaa labadii waddan wali waan kala deganay laakiin waxay la mid tahay anoo gurigayga jooga marka xagga jooga 2 times 3 times bishiina safar الحمد لله رب العالمين إلهي بلغو مهدي تان وحويان وقت اللي يسجليي يددال مقرني سايل الددالي ينفته أو لقد أدعيي وحي أي قبان كرتو إني قبان كرتو no excuse يعدر دالعان because haday baahidayda meesha taalo excuse me yala inaan healthy lifestyle ku noolaado anigu best shay maanta aan ugu rabo dhalinyarada sportiga sameysana healthy lifestyle ka jecel laakiin inaan taa ku noolaado excuse kama samaynayo sidoo kale nolosha aan doonayo iyo mustaqbalkana iyadana excuse kama samaynayo because baahidaydu weeyaan inaan familkayga iyo noloshayda mustaqbalkayga xorriyadayda dhaqaalahayga waxa nolosha yacniga ugu basic ah bay kamid tahay then waxa weeyaan waxaad inta qabsan kartaa marka no excuse okay caafimaad badan baa idin dhaafayna khayr badan baa idin dhaafayna Peace and love.